مسؤوليinta shirkadda Telesom Group oo maanta si weyn uga muuqday carwadii sideedaad ee sanadka 2018 lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom Cabdi Wahaab Maax iyo sidoo kale maamulaha xiriirka dadweynaha shirkadaasi Maxamed Cabdi Darbo haddana Telesom Group nahay adeegyo aad muhiim ah kaga soo qaybgalnay waa Dar es Salaam Bank waa Samgas waa Telesom iyo Maad intuba adeegyo muhiim ah keeneen Telesom ahaan hooyadii Telesom Group ta waxaan sanadkeena laba adeeg oo aad u qiimo badan oo nagu bishaareynayna dhalinyaradeeda runtii ama macaamiisheeda kala duwan labada adeeg oo ambassadorska iyo adeega Ardekab labadaasba macna ballaaran bay ardayda u sameynayaan waxa kale oo halkan ku sameynay qiimo dhimistan ugu sameynay lambarkayga 4ka branka oo halkan laga helayo waxa kale oo keenay gelintii internetka oo qiimo jabana oo wax badan laga helayo runtii dhammaan macaamiisheeda waxaan walaalahay ku soo dhawaad carwada haddii aad hore u maqasheen sariflayaashu iyagoo guryahooda jooga lacagta sarifaan maanta dhalinyaradu iyagoo guryahooda jooga ayay shaqaysan doonaan lacagna heli doonaan commission heli doonaan adeega waxa la yiraahdaa Telesom Ambassadors waxa weey qof kasta oo awooda wuxuu iibinayaa adeegyada Telesom iibiso mobilkiisu ka iibinaya khidmadiisana mar alla markuu adeega iibiyo ayuu helayaa adeega labaad ee ugu talagalay dhalinyaradu waxa weey dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare dhigata inay ka soo qayb galaan adeeg free ah oo ay ugu tartamaan inay shirkadda Telesom ka helaan hal semester oo free ah oo lacagta ka bixinaysa shirkaddu 10 arday waxa kale oo muhiim ah inaanu idin sheegno gaadiidleyda iyo dadka gaadiidka wata inay iyagana u soo bandhigeen waxa la yiraahdaa smart vehicle ama gaadhigaagu inuu noqdo meel ka soo joogto goob ka soo joogtaba inaad ka kantarooli karto la socon karto ka warhayn karto sidoo kale Telesom Group jooga bangiga Dar es Salaam Bank wuxuu isna ugu talagalay macaamiishiisa waqtiga carwada u jabiyo adeega maalgelinta dhinaca kalena ardayda jaamacadaha dhigata in computeriskii lagu maalgelin jiray loo jabiyo 40% waxa kale oo iyada jooga shirkadda Samgas oo sida gudoomiyaha gobolku sheegay iyaduna ugu talagashay waqtiga carwada socotay in 15% idin jabiso qiimihii gaasta inta carwada la joogo waxana way waa carwada keenaya dukaanada hadda tagtaan qiimihii hore ugu tagi doontaa Xamse Cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa